sharaf weyn bay caawa ii tahay inaan idinla joogo baran inagala qayb galo barnaamijkan quruxda badan oo intii waxyaabaha aan ka noodgareeyay ahaayeen barnaamij sal u ah dhismaha dawladnimada isku tashiga bulshada iyo waxyaabaha wanaaga ah ee dadka magaalada iyo guud ahaan gobolka ay u baahan yihiin in loo qabto in la gaarsiiyo dabcan hay'adaha dawladda ee khusaysa iyo in iyaga dhexdooda isku baraarujiyaan ka qayb qaadashada horumarka isku tashadaan isku tashi ku dhisan dawlad iyo bulshada qayb ka yahay waxaan rabaa dabcan inaan marka hore aan salaan idiga gaarsiiyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ku-xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan iyo gudoonka baarlamaanka mudane Cabdirashiid iyo gudoomiyaha ku-xigeenada iyo golayaasha kala duwan ee dawladda dhamaantood oo la socda shaqooyinka halkan aan u joognay labadan maalin muhiimaddu waxay ahayd inaan idinla ciido kadibna aan aragno waxyaabaha dawliga ay halkan ka socda iyo fariimaha bulshada hadda ka hor mar baan halkan laba jeer baan nimi marna waxay ahayd markii aan ka shaqeeyay dhismaha soo celinta ciidamada oo dabcan nabadoonka iyo raggii hawshaas gacanta ka qaatay ay fadhiyaan iyo markii labaadna waxay ahayd markii ay soo baxday baahida qalabka la isaga hortagayo aafada COVID-19 markaasina waa idin imi haddana dabcan mar walba oo aan fariin bulsho helo ama aan wax idin soo gudbisanna xafiiska ay khusayso ayaan marba jeclaa inaan maartay aan la beegsado si ugu dambeyn in ugu yaraan wax inooga soo laabtaan waxaan ku faraxsanahay in waxyaabihii aan maanta soo aragnay aad loo dhiirigeliyeen xaqiiqatan gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada saraakiisha iyo mas'uuliyiinta kale gobolka ku metela iyo waliba mas'uuliyiinta maaliyadda xaqiiqatan shaqo fiican bay qabteen waxaan arkay guryo qurux badan oo la dhisay gurigii degmada oo dhammaystiran oo u dhiman tahay kaliya sawiradiisa hadda baraha bulshada ay ku jiraan ee u dhiman tahay kaliya in xariga laga jaro waxaan arkay gurigii gobolka oo dib habayn ay ku socoto waxaan arkay saldhigii magaalada oo isna dhisan oo waliba qaybihii ugu dambeeyay ee loogu talagalay sheelooyinka gaarka maxaabiista iyo shubka ka samaysnaa oo sida gaarka ah u socdo ay gacanta ku hayaan waxaan arkay iyadana qaybtii oo iyana si fiican u dhisan oo wax ka darbigii kaliya wareegiisii uu socdo maxkamadii oo qorshaha ugu jirta waxaan tagay jeelka weyn oo isagana dabcan u baahan haatan isaga wax laga qabto kana isku tashiga aynu ku dhisayna marka wax badan ba xaqiiqatan aan dib isu weydiiyay nidaamka dhismaha dawladnimadu wuxuu ka bilowdaa xafiisyada dawliga inay shaqeeyaan taasi waxay muujinaysaa dadka gobolkan jooga inay muddo badan u soo sabreen inay helaan xafiisyo u adeega dawladda xafiisyo u adeega bulshada laga hago adeega bulshada bixiya waxyaabaha asaasiga ah sida amniga iyo horumarka xaqiiqatan aad ba dad badan baa ka hadlay markii dabcan aan baraha bulshada la wadaagay oo igu soo warceliyo yiri awal intaan ma jirin miya marka waxay muujinaysaa in nidaamkii hirgelinta siyaasadda ee madaxweyne Dani dawladnimada oo kamid ah waxyaabihii ugu horeeyay oo markii la doortayna uu kala hadlay odayaashii mar saraakiisha iyo mas'uuliyiinta gobolka ay gaar ugu yimaadeen boosaasana uu kala hadlay markii ugu dambeysay oo gudoomiyuhu uu kulankii ka qayb galay dawladda oo dhan isugu timina uu ka hadlay madaxweynuhu in la daadajiyo nidaamka waa sababta aad u aragteen gudoomiyihii baarlamaanka iyo wasiirkii maaliyadda iyo wasiirkii amniga iyo saraakiil badan oo halkan timi oo ku soo laabtay oo ka shaqeeyay oo shaqadaasina maanta miraheedii aynu hayno xafiisyadaas insha Allah dhaqso markay dhameystirmaan isku mar baa waliba waxaan jeclahay sidaan filayo wafti heer sare ah inay gobolka timaado oo hal mar ay xariga ka jarto arrimaha aadka looga hadlay waxa kamid ah amniga way idinla dareesanahay in horumarintiisa laga shaqeeyo dawladda madaxweyne Dani uu hogaamiyo amniga waxa uu kamid yahay tiirarka ay wax ka qabatay xaqiiqatan waxyaabaha ajiibka waxa kamid ah dhismaha ciidamada ilaa 5 xero oo tababar ciidan baan ka hirgelinay gobollo kala duwan oo baranna ay kaga soo aaday xero ciidamo badan baa la soo saaray laakiin hal mar in wixii ay wada qurux badnaadaan ama hal mar ay wax fiican laga bilaabo take off keen wax fiicnaada maaha way adag tahay waxay u baahan tahay marka hore waqti inaan qaadano
ciidamada arrinteeda waa la soconnaa taliye ayaa loo soo magacaabay gobolka taliyihii wuxuu sugayaa hadda ciidamadiisii iyo wixiisoo la isugu soo diyaarinayo ciidamo sida aad idinkuna codsateen isku dhaf ah ayaa gobolkan ka howlgelaya sugaya amniga ilaalin doona kala dambeynta dadka reer barmoodku waa isxantaano dad wax kala dhaxeeyaan iyo kuwa xifaaltama iyo qaybo kala duwan bay isugu jiraan dadaan dad cidkan wax kala dhaxayn oo aysan isku dhax hore kala dhaxayn oo aysan jirin waxyaabaha xurguftii hoose aynu isku naqaanay haddii reer barmood nahay ayaa imanaya amnigana iyaga ayaa maaragtay insha Allah sugaya meel gabagaba ayayna hawshaasi maraysaa waana loo fikiray waana laga shaqeeyay sida ugu muhiimsan ah in ciidamada la isku dhafo saraakiil kala duwan iyo ciidamo kala duwan oo gobolada kale ka yimi oo waliba isku dhafan oo guud ahaan Puntland oo dhan ka kooban inay gobolka guud ahaantiis ka howlgalaan arrintaasna wax badan bay ka bedeli doontaa amnigeena way sii wanaajin doontaa maalinba marxalad baynu soo maraynay waxaan u baahannahay inaan isku tashanno oo dawladda aynan kaligeed ka sugin wax dawladda kaliya inaysan amniga ka shaqayn dawladda kaliya inaysan ka shaqayn caafimaadka dawladda kaliya inaysan ka shaqayn waxbarashada laakiin aan inaguna dhinaceena aan buuxino haddaan gacmaha aysa saarano oo nidhaahno wax kasta dawladdu ha samaysana ogaada dadka aadka u fikiray waxay yidhaahdaan dawladdu waa shacabka oo dawladda garab siiya shacabka oo cashuurta bixiya shacabka oo dawladda la shaqeeya wargeliya markasta ku garab istaaga waxyaabaha ay ka tabanayaan u sheegta sida saxda hadda halka uga hadlayseen waxyaabaha cabashooyinka iyo farrimooyinkooda gudbista wixii ay dhaliil leedahayna sheega wixii ay ammaan leedahayna soo gudbiya taas waa muhiim annagana diyaar baan u nahay inaan taladiina ururino inaan dhageysano maqalno doodiina maqalno dad naga aaraa duwan sida aan wax u wadno si aan uga go'aan qaadano Puntland waa la wada leeyahay Puntland hoggaanka iyo qofka shacabka ah iyo qofka dhalinyarada ah iyo kantuulo ilaa magaalo jooga taladiisa anaga oo maqlaynaa soo jeedintiisa oo maqlaynaa isagaan dawlad ku nahay isaguna anagu dawlad nagu yahay taas ugu muhiimsan arrimaha muhiimka oo kale waxa kamida magaaladii hadda waa magaalo weyn waxay u baahan tahay marka waxyaabo badan in laga qabto dhirayntii in la dedejiyo sidii magaaladu ay dhirayn u helayd wadadii inay fiicnaato oo wada qurux badan ay yeelato mashaariic badan in mustaqbalka insha Allah hadii COVID-19 laga baxo aniguna dabcan xafiiskaygu diyaar buu u yahay inuu kala shaqeeyo gobolka iyo degmada iyo waxyaabaha fududeynta ah in maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo aan dabcan aan kala shaqeyno sidii gobolkan hadda maanta meeshu joogo shalay muu joogin laakiin maanta meeshu joogo birita ka sii wanaagsananaysa insha Allah si aan wax wanaagsan aan mustaqbalka u gaarno waxa u baahannahay inaan taasna aan doorkayaga aan ka qaadano jaamacad ba magaalada ku taala dadka soo dhaweeya waxay la tartamaysaa oo insha Allah rajaynayna magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya in ay guud ahaanba ay la tartanto dadka la soo dhaweeyo isdhexgalku uu bato ay noqoto xarun lagu soo hirto waxbarashada loo aado gobolada kala duwan looga yimaado hay'adaha dawliga adeega ay bixiyaan hadii laga helo insha Allah markaas ay horumar fiican bay sii gaaraysaa waxbarashada dhismaheeda ayaa iyadana soo socda xarumaha kale ee dawladda iyo wasaaraduhuna dabcan way soo degi doonaan marka waxaan u baahannahay inaan inaga u diyaar garowno hirgelinta dawladnimada oo qofna uusan qof ku hadlayn amniga qofna qof uusan ku hadlayn caafimaadka qof walba uu isu taago inuu ka shaqeeyo wanaaga hadda inaga dhan wadaaga ka wada shaqeeyna waxa rajaynayaa insha Allah inaan wax badan aan ka gaarno aad baan waxaan u bogaadinayaa gudida wadada ceel daahir ceer gaabo shaqo wanaagsan bay qabteen shaqo waxay qabteen tusaale fiican ah shaqada ay qabteen waxa garan kara qofkii soo maray ee wadada ceel daahir ka soo degay baa garan kara meesha ay wax ka keeneen maalin waxa ahayd fikir maalin waxa ahayd riyo maalin waxa ahayd wax u baahan in wax laga qabto maalinna waxay maraysaa wax la arko haddii mar la arkana waxay ku qurux badan tahay inaan inta hardhayna aan dhammaystirano wadadaasi wixii door dawladda kaga aadan mar walba diyaar bay u tahay waana la garab taagannahay dadkan waxaan ku bogaadinaynaa inay ka qayb qaataan mar ka qayb qaataan laba ka qayb qaataan saddex ka qayb qaataan arrinta jeelka waa arrin ayana muhiim ah
oo u baahan in qorshe weyn oo ballaaran loo sameeyo maanta guddida waan is aragnay waxaan isla soo qaadnay inay guddidu marka ay gobolka ka soo dhamaadaanna ay tagaan Garowe markaas insha Allah halkan noogu yimaadaan annaguna aan kala shaqeyno inaan golayaasha dawladda u ballamino dadka reer Puntland oo isku made dad gobolkan kaliya ka soo jeedaan dadka dhan in loo ballamiyo wixii laga gaaro markaas iyagana ay meeshaas ay ka sameystaan faraysikooda halkaas ayana wax looga soo ururiyo markii gobolka ka soo dhamaadaan anu birito waxaan tegayaa Ceelbu oo sidoo kale aan qayb ka qaadanayo in horumarka ka socda oo halka aan geynayno gurigii degmada iyo sidii ay solar u heli lahayd sidii kor loogu soo qaadi lahaa marka halka tagana waa u sheegaya dadka jooga ilaa kuwa tuulooyinka jooga neef haday haysan geeya baan leeyahay baran geeya jeelkii hal lagu daro odayaasha baadiyaha jooga iyo kuwa tuulooyinka jooga waagi baa la yiri Soomaaliya koob la yiri waxa la ururiyo dawladda siyaad barre oo isku tashiga lagu tashan jiray nin baa xali caan waxay u ahayd ari iga dhig marka la dhaho intaas oo shilin bixi buu oran jiray ari u bedel ari markuu u bedelo bixin jiray marka waxa rajeenaya iyagana waxa rajeenaya in maartay qolyo badan oo ari iga dhiganayo ku yimaadaan oo maartay marka qiimaha u sheegtaan waxa la siyaa tiraan kiiska sibirka inay neef u bedelaan waan ku faraxsanahay marka anigu dadkii reer baramoodkii hore aan ahayo maxamed baa idin sheegay mar walba waxaan jecelahay magaaladan horumarkeeda wanaageeda inay qurux badnaato inay dadka la sinaato inay hore u sii marto inay magaalooyinka Soomaaliya hormuudka ka noqoto waxaan ku dadaalayaa insha Allah ina maalin aragtaan halkan iyadoo madaxweynuhu joogo uu ka shaqeynayo taasna aan rajeynayno in dhaqso iyo insha Allah mustaqbalka ay iman doonto hadii xafiisyadaas iyo hawlahaas inoo dhamaadaan intaas inoo hartay nabadda iyo amniga iyo xasiloonida aan ku faradeegno taas baa ugu muhiimsan meesha ugu dambaysa qolada jeelkana waxaan kala xiriirayaa bulqaasiyo aniguna waxaan ku darayaa boqolkiiba oo sibira meelo kale way sugayaan insha Allah waxaan rajeynayaa amniga in halkaas ka sii wadno